xukuumadda xisbiga wadani waxaa sidoo kale ay ballan qaadaysaa in dakhliga dawladda ay gaarsiin doonto 1.5 bilyan oo dollar dakhligaas oo hadda ah 400 milyan. tiirka saddexaad ee barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadani waxa uu ka hadlayaa dhaqaalaha oo muhiim u ah tayada heerka nololeed ee bulshada, shaqo abuurka, la dagaalanka saboolnimada iyo kor u qaadista heerka nololeed ee bulshada. xisbiga wadani qorshe ahaan waxaa ka go'an inuu abuuro jawi dhaqaale oo kobcinaya hal abuurka, wax soo saarka, soo jiidanaya maalgashiga, suuragelinayana shaqo abuur. haddaba si loo gaadho hiigsiga iyo himilada guud ee horumarka dhaqaale ee uu ku taamayo xisbiga wadani, xukuumaddiisu waxaa 5 sano muddo xileedka ay qaban doontaa qorshayaashan hoos ku xusan. 1. xukuumaddu waxay hirgelin doontaa siyaasado iyo shuruuc sees u noqda dhismaha dal leh dhaqaale casri ah, wax soo saar buuxin kara baahiyaha suuqa gudaha iyo kuwa caalamiga ah. 2. waxay dhiirigelin doontaa maalgashiga gudaha iyo dibadda. waxay sidoo kale hirgelin doontaa mabaadi'da suuqa xorta ah ee ka caagan kootada iyo in cid gooniya suuqa loo xidho. 3. xukuumadda xisbiga wadani waxay hoos u dhigi doontaa cashuuraha la saaro quutal daruuriga iyo badeecadaha aasaasiga u ah nolosha bulshada. 4. qorshaha xukuumadda waxaa ka mid ah inay hoos u dhigto sicir bararka iyadoo ku ilaalin doonta xaddi ka hooseeya 6%. sidoo kale xukuumadda xisbiga wadani waxa ay ballan qaadaysaa in la kordhin doono tacabka wax soo saarka beeraheenna ee sanadkii oo waqti xaadirkan ah 500 oo kun oo kiish, waxaana la gaarsiin doonaa 10 milyan oo kiish sanadkii, iyadoo hiigsiga xisbigu yahay in la daboolo guud ahaan baahiyaha cuntayarida ee waddanka ka jira si la isaga filaado cuntada qaranka food sovereign nation. sidoo kale xukuumadda xisbiga wadani waxay hiigsanaysaa in 100% la daboolo isku filaanshaha cunto ee dalagyada loo yaqaan ferileyda. xukuumadda xisbiga wadani waxa ay ballan qaadaysaa inay sahamin doonto soona kordhin doonto suuqyo cusub oo loo iibgeeyo xoolaheenna oo ah lafdhabarta dhaqaale ee dalkeenna. xukuumaddu waxaa sidoo kale ay ballan qaadaysaa in dakhliga dawladda ay gaarsiin doonto 1.5 bilyan oo dollar si adeegyada bulshada wax looga qabto. dakhligaas oo hadda ah 400 milyan, waana korar u dhigma celcelis ahaan 30%. xukuumadda xisbiga wadani waxa ay hiigsanaysaa inay 5 sano ee muddo xileedkeeda dalka laga abuuro 500 oo kun ama nus milyan fursadood oo shaqooyin cusub ah, waxaana 25% ay hoos u dhigi doontaa heerka shaqo la'aanta. xukuumadda xisbiga wadani waxay hiigsanaysaa in haadaanta fakhriga laga soo saaro muwaadiniin gaadhaysa 468 kun oo qof ama wax ku dhow nus milyan oo hadda ku jira xayndaabka saboolnimada. dhanka kale xukuumadda xisbiga wadani waxa 15% ay hoos u dhigi doontaa qiimaha korontada. waxaa la gaarsiin doonaa adeegga korontada muwaadiniin gaadhaysa 1.5 milyan oo muwaadin, kuwaas oo aanay hore u gaari jirin adeegga korontadu, waxaana ay u dhigantaa in 17% la yarayn doono heerka koronto la'aanta. waxaa markii ugu horraysay la aasaasi doonaa sharikadda batroolka qaranka Somaliland National Oil Company, taasi oo ka mid ah qorshayaasha xukuumadda xisbiga wadani. dhanka kalena waxaa ballanqaadka xisbiga wadani ka mid ah in la dhisi doono 850 kilomitir oo laami ah ahna waddooyinka isku xidha gobollada iyo degmooyinka dalka. waddooyinkaasi ay dhisi doonto xukuumadda xisbiga wadani waxaa ka mid ah 1. Lowyacaddo Fardaha ilaa Boorama. 2. Boorama ilaa Baki. 3. Hargeysa ilaa Baligubadle. 4. Hargeysa ilaa Salaxley. 5. Berbera ilaa Raariboor. 6. Allaybaday ilaa Arabsiyo. 7. Burco Oodweyne ilaa Hargeysa. 8. Ceerigaaba ilaa Maydh. 9. Dhubata ilaa Cadaadley. 10. Waadaamago ilaa Qorilugud. iyo 11 dhowga Hartiyimi. dhammaan ballanqaadkaasi waxa uu ku qoran yahay tiirka saddexaad ee barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadani.